shan cunto oo kaliyaha u roon. Ku ilaalinta kaliyaha xaalad caafimaad waxay muhiim u tahay badqabka guud ee qofka. waa kuwa shan siyaabood oo lagu taageerayo nadiifinta iyo joogteynta shaqada kaliyaha. 1. Joogteynta biyo cabidda. Cabitaanka biyo badan waa habka ugu waxtarka badan ee si dabiici ah lagu nadiifin karo kaliyaha. Waxay ka caawinaysaa inay sunta iska soo saaraan waxaana ka hortagayaan dhagaxaanta kaliyaha ku sameysma. Waxaa talooyin caafimaad lagu soo jeedinayaa 8 ilaa 10 koob biyo ah in maalin kasta in la cabo iyadoo lagu saleynayo heerka waxqabadka iyo cimilada. Cuntooyinka kaliyaha u wanaagsan. Cuntooyinka qaarkood waxay faa'iido u leeyihiin caafimaadka kaliyaha maadaama gacan ka geysan karaan yareynta bararka iyo ka hortagga cudurrada kaliyaha ku dhaca. Cuntooyinka lagu taliyay waxaa ka mid ah cranberries wuxuu ka hortagaa caabuqa ku dhaca kaadi mareenka. Caleenta cagaaran waa mid hodan ku ah fitamiino iyo macdano kala duwan kuwaas oo ka taageeraya shaqada kaliyaha. Midhaha waxaa ku badan antioxidantska kuwaas oo kaliyaha ka difaaca free radicalska oo ah waxyaabaha ka soo baxa marka cuntada la burburiyo habka loo yaqaano metabolismka. Toonta waxay yareysaa bararka iyo hoos u dhigidda dhiigkarka ama cadaadiska dhiigga ee sareeya. Guud ahaan cuntooyinkani waa kuwo u wanaagsan kaliyaha. Yaree cusbada ama milixda iyo cuntooyinka la warshadeeyo. Milixda iyo cusbada xad dhaafka ay u culaynsiin karaan kaliyaha habsami socodka shaqada kaliyaha wuxuuna horseedi karaa cadaadiska dhiigga oo sareeya ama dhiigkar. Milixda ama cusbadu waa mid halis ku ah caafimaadka kaliyaha. Iska ilaali ama xadid cuntooyinka la farsameeyo sida cuntooyinka dariiqyada lagu iibiyo fast foods iyo kuwa qasacadaysan. Isticmaal bedelka milixda ama cusbada basbaaska, toonta iyo cunto carfiyaasha kale kuna bedel halkii cusbada ama milix. Waa halka ugu dhow ee loo yareyn karo in qofku isticmaalo milix xad dhaaf ah. Jimicsi joogta. Dhaqdhaqaaqa jireed ee joogtada ah sida jimicsiga wuxuu gacan ka geysan karaa joogteynta helidda miisaan caafimaad leh, yareynta cadaadiska dhiigga iyo hagaajinta shaqada kaliyaha. Noocyada jimicsiga sida socodka, orodka, wadida baaskiilka iyo dabaasha ayaa ah kuwo u fiican wadnaha iyo caafimaadka kaliyaha. Talooyin caafimaad ayaa lagu soo jeedinayaa in qofku uu joogteeyo jimicsiga. Ugu yaraana waxaa la soo jeedinayaa inuu maalintii sameeyo inuu dhiganta 15 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo iyadoo ku xiran tahay da'da iyo halka uu qofku joogo. Isticmaalka xad dhaafka ah ee xanuun baabi'iyaasha. Si xad dhaaf ah u isticmaalida dawooyinka qaarkood gaar ahaan dawooyinka anti-inflammatory non-steroid drugs loo soo gaabiyo NSAIDs sida dawada ibuprofen waxay waxyeeleyn karaan kaliyaha. Qaadashadooda waqti dheer kadib la tasho khabiir caafimaad sida dhakhtar iyo adeeg bixiyayaasha daryeelka caafimaadka si loo ogaado heerka shaqada ee kaliyaha iyadoo baarida joogtada lagu sameynayo ka hor intaad u isticmaalin si halis ku ah shaqada iyo caafimaadka guud ee kaliyaha. Intaas iyo ku eegay barnaamijkeena tan iyo kula dambe nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن ميل كستا جوجتان waxaan jecelahay in idin la wadaago in aan kanaalka ku soo kordhin doono qayb wicitaanka dhakhtarka oo toos ah. waxa kale oo markaan noo soo diri kartaan fariimo qoraal ah kuwaas markaan hor dhigi doono khubarada caafimaadka ee kanaalka kuwaas oo idinka jawaabi doona su'aalaha tabeesan oo ku maasantihiin xubnaashiina kanaalka.